bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono muddo kadib Cali Guudlaabe waxa uu ka degay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi si qasab ah ama si awood ah ayuu ku tagay ciidamo gorgor iyo haram cad isugu jira ayaa laga daabulay magaalada caasimadda Muqdisho halkaas ayaa la geeyay si ay Cali Guudlaabe u soo dhaweeyaan isla markaana ay kaga difaacaan jabhadda kacdoonka gobolka Hiiraan ee halkaasi ka aasaasan warayaan daawadayaal kageena Cali Guudlaabe safarkiisa ayaana daawadayaal isdul taagi doona maxaadan daawade kala socon safarka oo Cali Guudlaabe maanta ku tagay magaalada Beledweyne hoobiyaal ayaa isqabsaday oo lagu garaacay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne dadka halkaasi ku nool ayaa cabanaya beesha xawaale ayaa ciidamo ku soo daadgureynaysa magaalada Cali Guudlaabe baqdin xoogan ayaa soo wajahday saacadaha soo aadanna waxa uu damacsan yahay in uu isaga soo baxo magaaladaasi oo uu dib ugu soo noqdo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle warayaan daawadayaal kageena halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa ha yeeshee intaanan guda gelin muuqaalkeena iyo faaqidaada qodobadaasi waxaan ka dalbanayaa in muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furadaya gamareelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya ugu dambeyn Guudlaabe waxa uu maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hal sano 2 bilood iyo 26 maalin ayay madaxweynaha Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ku qaadatay in uu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kooreynta aysan dhawaan ka dejin diyaarad ka qaaday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hiirshabelle 452 maalmood oo u dhiganta 65 toddobaad in ka badan 10838 saacadood ayaa Guudlaabe laga hortaagnaa in uu tago magaalada Beledweyne ha yeeshee ugu dambeyn ciidamo laga qaaday Muqdisho ayaa suuro geliyay in madaxweyne ku-xigeenkiisu maanta ku soo dhaweeyo magaaladaasi tagitaanka Guudlaabe ee Hiiraan ayaa la rumaysan yahay in ay fursado badan xambaarsan tahay waase haddii uu uga faa'iideysto sida togan si dhab ahna xal ugu raadiyo tabashooyinka laga tirsanayo maamulkiisa sida ay qabaan dadka u dhunduleela xasaradaha Beledweyne fursadaha jira waxaa barbar socda mushkilado ay waajib tahay in aan daboolka laga qaadin sida in gacan ka hadal ka dhaco magaalada Beledweyne waxaa gees ka jooga ciidamo xoogan oo in muddo ah ka soo horjeeday in madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle tago magaalada Beledweyne inta badan bulshada deegaanku ma aqoonsana madaxtinimada Guudlaabe waana carqalad xalkeeda looga fadhiyo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe sidoo kale tallaabada ay madaxtooyada Soomaaliya maanta Guudlaabe ku geysay Beledweyne ayaa muujisay qorshaha uu Fahad Yaasiin ku tagi doono degmada si uu u soo babo kursi baarlamaan waxaa la isweydiinayaa socdaalkan uu Cali Guudlaabe maanta ku tagay magaalada Beledweyne waxa ay ka bedeli karto xiisadda halkaasi ka aloolsan xiisadda siyaasadeed ee ka aloolsan Beledweyne ayaana mar kale cirka isku sii shareertay saacadihii la soo dhaafay inta uusan Cali Guudlaabe ka degin magaalada Beledweyne xaaladda siyaasadeed ee gobolka Hiiraan ayaa weli dhinac u dhicin xilli dhinacyada iska soo horjeeda uusan midkoodna ka tanaasulin mowqifkiisii hore ee kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta sababay waxaana saacadihii la soo dhaafay mar kale xoogeysatay xiisadda ka aloolsan Beledweyne xalay fiidkii ayuu soo baxay war sheegaya in madaxweynaha Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe uu ku wajahan yahay xarunta gobolka Hiiraan oo uusan cagaha dhigin tan iyo markii kursiga loo boobay waxaana inta badan xaafadaha Beledweyne isku fidiyay ciidan dhawaan la geeyay magaalada oo gorgor iyo haram cad ka tirsan tallaabadaasi ayaa sababtay in xalay saqdhexe uu shir jaraa'id Muqdisho ku qabto Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud isla markaana uu ku goodiyo in tagitaanka Guudlaabe ee Beledweyne ay dhalin doonto gacan ka hadal isagoo muujiyay in looga baxay heshiis lala galay oo uusan shaacin wixii uu ku qotamay saakay inta badan wadooyinka magaalada ayaa la xiray waxaana meel kasta taagnaa asgaro afku u xiran yahay adeegyadii waxbarashada ayaa saakay la hakiyay halka goobaha ganacsigu aysan si caadi u furnayn qaybo kamid ah xaafadaha Beledweyne
waxaa ku sugnaa saake ciidan diidan imaanshaha Guudlaabe waxaana laga cabsi qabay gacan ka hadal. arrinkan ayaa ku soo aadaya xilli ay shalay Jowhar gaareen guddi heer wasiir ah oo dhawaan ra'iisul wasaare Roble u saaray xalinta xiisada ka taagan Hiiraan, kuwaasi oo durba kulamo la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. waxaana xusid mudan in uusan weli dhaqan gelin amarkii xukuumadda ee ku aadanaa in dib loo soo celiyo ciidankii la geeyo beledweyne. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed iyo gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u koray sidii Cali Guudlaabe loo geyn lahaa beledweyne. ha yeeshee inta badan mowqifka bulshada ku dhaqan magaalo madaxda ayaa si adag kaga soo horjeeday guud ahaan Hiirshabelle iyo madaxtinimada Guudlaabe. agaasimihii hore ee Nizam Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka doonaya in ay helaan kuraas baarlamaan ayaa saameyn xoogan ku leh ciidanka la geeyo beledweyne, wuxuuna diiradda saaraya in magaalada ay ka dhacaan dagaalo qaraar si doorashada kuraasta taale Hiiraan loogu soo wareejiyo Shabeellada Dhexe. sida muuqata fila Soomaaliya ayaa gadaal ka riixaysa in Guudlaabe la geeyo beledweyne iyada oo uga bedelanaysa dana siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan kuraas baarlamaan. inkastoo dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle uu ku gacan seeray fariin ka timid Fahad iyo Farmaajo oo ay ku doonayeen in uu u boobo kuraas ay leeyihiin beelo gaar ah. Hiirshabelle waxaa laga soo dooran doonaa 38 kursi oo ay u soo codeen doonaan 3833 erga ah, kuwaasi oo doorashadoodu ka dhacayso 4 goobood. magaalada Jowhar waxaa ka soo bixi doona 13 kursi halka ay beledweyne ka imaan doonaan 25 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cali Guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle inta uusan ka degin garoonka Ugaas Khaliif ee beledweyne waxaa halkaasi lagu garaacay madaafiic kala duwan oo ay ku garaaceen jabhadda kacdoonka gobolka Hiiraan. wararka laga helayo magaalada beledweyne ayaa sheegaya in ciidamada la magac baxay kacdoonka Hiiraan ay madaafiic xoogan ku garaaceen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaaladaasi xilli uu magaalada gaarayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. madaafiicda oo qaarkood ku hoobtay garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa waxaa xigtay hoobiyayaal kale oo ay ku jawaabeen ciidamada Jabuuti ee ku sugan garoonkaasi. sidoo kale waxaa israasaaseen kooban ay ka dhacday magaalada taas oo u dhaxaysay ciidamada dowladda iyo kuwa ka soo horjeeda safarka Cali Guudlaabe. macadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyo weerarka madaafiicda ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif waxaana weli xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan. ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya magaalada iyaga oo xiray inta badan wadooyinka halka duleedka ay ku sugan yihiin ciidamada markaasi gadoodsan. dhaqdhaqaaqadan cusub ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen guud ahaan magaalada sida ganacsiga, isku socodka dadka iyo gaadiidka oo hakad galay. si kastaba ha ahaatee booqashada Cali Guudlaabe ee beledweyne ayaa ku soo aadaysa xilli haatan Muqdisho uu ku sugan yahay Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeda Hiirshabelle, isaga oo sheegay in hadda la sameynayo dadaalada lagu dibo mareynayo. Cali Guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle markii uu tagay beledweyne waxaa loo qabtay munaasabad ballanqaad culus ayuuna ka sameeyay halkaasi. madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa maanta markii ugu horeysay ka degay magaalada beledweyne tan iyo markii loo doortay hoggaanka sare ee maamulkaasi. Cali Guudlaabe oo ka hadlay munaasabad lagu soo dhaweeyay ayaa ballan qaaday in uu xalin doono tabashada ka taagan gobolka isla markaana uu cadaalad fali doono reer Hiirshabelle. alle ayaa mahadaasi iska leh. maanta haddii aan magaalada beledweyne aan ku wada sugannahay waxaa uga mahadcelinaynaa halkan cid kasta oo gacan ka geysata in ay sidan wanaag ah u dhacdo oo annaga oo nabad ah oo wax dhibaato ah dhicin isku imaano, ayuu yidhi ugu horeyntii isaga oo si gaar uga mahadceliyo duubabka dhaqanka, ciidanka amniga iyo madaxda Hiirshabelle. Guudlaabe ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in tabasho kasta oo jirta iyo cid kasta oo wax tabanaysa uu la fariisan doono oo uu ka garaabi doono xilli ay muddo xiisada siyaasadeed ka taagneed beledweyne. aan is hor fariisano waa daawoobaynaa. waxaa rabaa in aan hortiina ka caddeeyo in cid kasta oo wax tabanaysa hadday tahay mid deegaan iyo mid qabiil ay tahay waa ka garnaqi doonaa. aan waranno oo dadkan dowladnimo iyo wada dhalasho ayaa ka dhaxaysa. waxa uu intaasi ku sii daray
in doorashada ka dhacaysa beledweyne oo ka mid ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi ay noqon doonto mid daahfuran oo cadaalad ah isla markaana laga wada qayb qaato sugidda amniga magaalada. mas-uuliyadda waa meerto qofba mar ayuu qaban, waxaa muhiim ah in qofka markaasi haya uu dadka isku hayo isla markaana fursad la siiyo. ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in ay midoobaan reer Hirshabelle oo waxa dhexdooda lagu xaliyay isfaham iyo wada hadal iyada oo dhinac loo wada jeesanayo lagana shaqeeyo horumarka maamulka. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijyada channelka Ogaalka Media aan ku leenahay YouTube-ka haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Faraga Maralka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal